المدينة صلى صلاته حلت صفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. runtii waxaa qof walba inuu isweydiiyo u baahan arrimo badan oo noloshiisa wax ka khuseeya. haddii aan isweydiino maxaa ugu waaweyn nicmooyinka ilaahayna siiyey, waa la tirin karaa: islaamkii, caqligii, caafimaadkii, waktigii. marka waxaa ka mid ah nicmooyinkaas waktiga oo muhiimadiisa leh. sidoo kale waxaa la isweydiiyey dadka adduunka ugu horumarka, ha noqoto ganacsi, ha noqoto technology, ha noqoto aqoon kale, waxbarasho. dadka hogaaminaya ee ugu caansan, ha noqdaan muslimiin, ha noqdaan gaalo, waxaa la isweydiiyey maxay kaga duwan yihin dad kale. marka hal mid baa isku wada raacsan yihiin, isku wada raacin inay kaga duwan yihiin. waxa weeye arrintaas waa waktiga say maamuleen, siday uga faa'idaysteen, siday u qiimeeyeen. ta saddexaad waxaa la isweydiiyey waddamadan qaarna horumareen, qaarna dhulka yaalaan, qaarna soo ordayaan, qaarna ay weli niyaddii ku jirto. waxyaabaha keenayna kala hormara maxaa ka mid ah? jawaabaha la raadiyey ama waxyaabaha ay kala duwan yihiin ama waxyaabaha kala reebay waxaa ka mid ah waktiga ka mid ah. marka waktiga muhiimaddiisa waxay la tahay qof kasta oo bini aadam ah, caqli leh, dareen leh, waa dareensan yahay muhiimadda uu leeyahay, isbeddelku keeni karo, nolosha qaybtu ka ciyaaro. arrintan caawa is leenahay inaan falanqayno waa waktiga. waktigu ama waktiga maareyntiisa ama time managementiga waxa la dhaho waa xirfad qof kasta fiican tahay inuu barto ama looga baahan yahay inuu macnaha wax ka yaqaano ama isku dayo ama uu ku fekero ama uu ku dadaalo. waa xirfad qofka u hagaajinaysa waktigiisii, waa xirfad qofka waktigiisa u beekaaminaysa, u tashiilaysa, u qurxinaysa. waa xirfad runtii qiimaheedu qofka noloshiisa laga dareemi karo. waktigu haddii la yidhaha qof kasta waktiga bal wax ku qiimee, waxa ku filan keliya inaan dhahno waktigu waa nolosheenna, ama qofku waktigiisu waa noloshiisa. intuu waktigiisa ka faa'idaystay, intuu waktigiisa waxgeliyey, waa inta noloshiisa tahay. intuu waktigiisa lumiyey ama dayacay ama ka faa'iidaysan waayey, waa wax ka go-an noloshiisa iyo horumarkiisa. waktigu waa nolosheenna, lama soo celin karo, ma soo isticaaraysan kartid oo dayn kama soo qaadan kartid, ma kaydin kartid, ma joojin kartid. marka waa fursad ku soo martay, qofkana ay ku fiican tahay in aanu dayacin, ka faa'iidaysto. marka waxaa loo baahan yahay qof kasta in uu bal isweydiiyo sidee waktigay uga faa'iidaysan karaa. waan aragnay waktigiin macnaha waan soo sheegnay waktiga faa'iidadu leeyahay. aanan kusoo koobna noloshaada macnaha ama nolosheenna ama noloshayda in macnaha ka yahay kow.